muuqaalkaani ma aha mid kaftan ah, mana aha mid qof walba loogu talagalay, maxaa yeelay waa meel aad nooga fog annaga, taasoo la yiraahdo kaynta dadku isku dilo. kayntan waxay ku taallaa waddanka Japan, meel u dhow buurta la yiraahdo Fuji, waana meesha ay dadku aadaan si ay noloshooda uga soo gabagabeeyaan. waxaan soo booqday kayntan la isku soo dilo anigoo aan aad uga taxadarayn, waxaana soo arkay wax murugo leh oo aan filaynin. kayntu waa kayn aad u jiq ah oo ay aad uga buuxaan geedo, mana jirto dhexdooda wax u dhaxeeya. sidoo kale taleefanada ma soo geli karaan, iftiinkuna inuu soo galo aad bay u adag tahay. markaad ku dhex soconayso kaynta dhexdeeda aad baad cabsi u dareemaysaa, maxaa yeelay dhulka oo dhan waxaa yaala xarig cad, sababtay u yaalaan waa arrin murugo leh. dadku marka ay gelayaan ayaa ay dhigtaan xariggaas cad iyagoo ku xiranaya meel laan ah si ay ugu soo noqdaan meel ay ku badbaadi karaan haddii ay maskaxdooda isbedesho. laakiin intooda badan saas may sameeyaan, yacni ma soo noqdaan oo waa ay isdilaan. arrinta kale ee murugada leh ayaa ah in booliisku aysan wax calaamadaha u samaynin kayntan dhexdeeda si dadka loo weydiiyo ama ay u dalbadaan caawimaad ama ay dib uga fakaraan go'aankooda. waxaan ku dhex socday kayntaani muddo 2 saacadood ah, maxaa yeelay isdilku waa arrin aan ku jirin dhaqankeena, mana ahan inaan ka hadalno. waxaan jeclaan lahayn inaysan annaga nagu dhicin ama aysan ku dhicin saaxiibadeena aan naqaano. markii aan ka soo baxnay kaynta waxaan isku daynay inaan ilowno wixii aragnay, waxaana soo dhex marnay dadka Jabaaniiska ah. waxaan ahayd kuwo aad u faraxsan, waxaana xaqiiqsanay inaysan arrintaasi jiri karin. safarkeennan aniga iyo Aleyna waxaan soo samaysanay saaxiib cusub oo ahaa qof naxariis la deeqsina ah, annaga oo dhammaanteen ku raaxaysanay safarkeennaas. laakiin 1 sano kadib markii aanu dib ugu noqonay Japan, waxaanu ogaanay in uu naftiisii dilay oo uu isagu isdilay. isla markiiba waxaan xasuustay kayntii la isku dili jiray. meeshaani maahan keliya kayn, waa ay ka weyn tahay kayn, waana ay ka khatar badan tahay kayn. dadka qaarkood ayaa markaasi ay u noqotay qabriyadoodii oo ay noqotay meel ay ka baxsan waayeen. waxayna noqotay gurihii ay ku aasmi lahaayeen, sida arrinta saaxiibkay oo kale. waa sababta keentay inaan ka hadlo muhiimadda ay leedahay in laga hadlo arrintan isdilka oo si guud ahaaneed looga hadlo, si aan markaas u dhammayno. waa nacbahay kayntan, maxaa yeelay waa ay jirtaa. waxaan jeclaan lahaa maalin inaan loogu yeelin meeshaan kayntii isdilista. waxaan jeclaan lahaa in loogu yeelo waxa ay tahay oo ah kayn aad u qurux badan oo cagaar ah. waa inay todobaadka dambe way fiicnaan lahayd inaan kayntan magac kale u bixino. kala hadal arrintaas saaxiibada. barnaamijka waxaa iska leh Nice Daily, anigoo Saciid Khaliif ahna waa turjumay. mahadsanidin.